السلام عليكم ورحمة الله. maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa ku dhawaaqday go'aanka kiiska xuduudda badda oo isku haysteen wadamada Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo maxkamaddu gabi ahaanba diiday doodii Kenya ee ku saabsanayd qaabka ay u xariiqatay xuduudda. balse marka hore xayeysiis yar oo ku saabsan Akadeemiyadda Fanus oo lagu soo kordhiyay macallimiin maadooyinka xisaabta iyo sayniska fasalada dhexe iyo sare Soomaali ama Ingiriis wax ku baraya aaladda Zoom-ka. kala xiriir facebook.com/fanus ama fanus.com. Kenya waxay ku doodaysaa in khariidadda Kenya la bedelay sanadii 1979 iyo 2004 isla markaana aysan Soomaaliya xilligaasi wax dacwad ah ka keenin. doodda Kenya ay maxkamadda u gudbisay ayaa u qornay sida tan: aamustaanta Soomaaliya ay ka aamustay khariidadda Kenya u gudbisay UN-ta sanadii 1979 iyo 2004. aamusnaantaas ayaa muujinaysa inay Soomaaliya ku ogolaatay khariidadda ay Kenya samaysatay. Kenya ayaa ku tilmaamtay aamusnaantaas inay tahay ama ay ka dhigan tahay heshiis aamusan oo macnaheedu yahay Soomaaliya inay horay wax dacwad ah uga keenin khariidadda Kenya wixii ka horeeyay 2014. haddii maxkamaddu u qiri lahayd arrintaas Kenya waxaa loo xukumi lahaa badda, sababtoo ah waxaa jiray kiisas hadda ka hor wadamo dhul isku qabsadeen loo xukumay kii dhulka ka talinayay muddada. nasiib wanaag maxkamadda ayaa gaashaanka u daruurtay sheegashada Kenya inay badda iyadu ka talinaysay Soomaaliyana ay ku waafaqday. maxkamadda ayaa waxay soo daliishatay in xataa heshiiskii 2009 labada dawladood kala galeen lagu sheegay in labada dawladood ay isku khilaafsan yihiin xadbadeedka. haddaba dhammaan garsoorayaashii maxkamadda ayaa diiday doodii Kenya oo ahayd inuu heshiis horay u dhexmaray labada wadan ee dhinaca xuduudda badda ah. garsoorayaasha maxkamadda ayaa waxay kaloo isku raaceen in xuduudda labada dal laga bilaabayo xariiqinta ku qeexan qaabka Soomaaliya ku doodaysay oo ahaa waxa loo yaqaano equidistant line. xadkaas ayaa waxa uu soconayaa 12 mayl ee u horeysa badda. 12 mayl ayaa waxa loo yaqaanaa territorial waters oo waa sida dhulka oo kale ciidan amar ka haysan dawladda Soomaaliya halkaasi ma mari karto. markii 12 mayl la dhaafo ilaa 200 mayl laga gaarayo ayaa waxa loo yaqaanaa EEZ oo socodka maraakiibtu u furan tahay, laakiin kalluumaysiga iyo shidaalka dawladda iska leh kaliya ay ka baaran karto. maxkamadda ICJ ayaa la timi line cusub oo qaybta ugu badan badda raacinaysa dhanka Soomaaliya. 10 garsoore ayaa isku raacay in ilaa laga gaarayo xuduudda 200 oo mayl gudaha badda ah xadka xoogaa yar loo soo weecin doono dhinaca waqooyi ee Soomaaliya ilaa laga gaarayo xuduudda qalfoof-badeedka. garsoorayaashii ka hor yimid arrintan ayaa waxa ka mid ahaa garsoore Cabdiqawi, isagoo qoraal dheer fikirkiisa ku cabiray iyo sababta uu uga soo horjeedo arrintaas oo aan ku soo tarjumi doono video soo socda. maxkamadda ayaa waxa ay ku andacoonaysaa inay sidaasi u samaysay si ay cadaalad ugu samayso labada wadan, maadaama haddii sidii ay Soomaaliya rabtay 100% la raaci lahaa Kenya baddeeda la go'doomin lahaa oo Tanzania iyo Soomaaliya ku hareereysnaan lahaayeen. maxkamadda ayaa waxay soo daliishatay in haddii wadan uu khatar u galo in badda laga xiro ay maxkamaddu xaq u leedahay inay xuduudda weeciso si aan wadankaasi go'doon u noqon. waxaana sidaasi isku raacay 10 ka mid ah garsoorayaashii halka 4 kalena ay diideen oo uu ku jiray garsoore Cabdiqawi. waxaan insha Allah videoga soo socda ku soo qaadan doonaa badda loo xukumay Soomaaliya anoo isticmaalaya Google Map-ka oo aan dusha ka arki doono inta ay la eg tahay cabirkeedu iyo qaybta Kenya loo gooyayna inta ay tahay. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.